Heerarka mudnaanta la siiyey ayaa ah waxa uu ardaygaagu u baahan yahay inuu ogaado dhammaadka sanad dugsiyeedka. Waxaan ka hubin karnaa tani inagoo fiirinayna haddii ay horumar ku socdaan, qayb ahaan fahmayn ama aqoon u leeyihiin. Dugsiyada qaar waxay ugu yeeraan qaabkan ku qiimaynta waxbarashada. fasalka labaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad isticmaasho fikrado kala duwan si aad u muujiso lambaro. tusaale ahaan waxaan ku weydiin karaa sidee uga samayn kartaa 3 kooxood 10 blocks. ka fikir dhammaan siyaabaha kala duwan aad uga samayn karto 10 block. tani waxaa ka dhigan tahay in dhibaatada ku xalin karto siyaabo kala duwan. waxaa laga yaabaa inaad haysato 1 qadar 4 qadar 5 inaad 10 ama 2 qadar 4 qadar 4 lama tahay 10. fasalka labaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad muujiso oo aad fahanto matalaadda tirada ee kala duwan. tusaale ahaan waxaan ku tusi karaa sida hal loogu jabin karo 3 qaybood oo isla eg ama 3 meelood. waxaan kale oo aan ku tusi karaa inaad taqaanid sida loo bandhigo tirooyinka nooc kasta ama nashqadda adigoo u kala jebinaya 12 ilaa 10. tan macnaheedu waa inaad taqaantid sida loo qaybiyo hal lambar qaybo. fasalka labaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad dalabto oo aad sharaxdo xeelado iyo xirfad aad ku xalliso dhibaatooyinka dunida dhabta ah iyo isleegyada xisaabta. tusaale ahaan qof ayaa ku weydiin kara haddii aad haysatid 2 buug oo cagaar ah, 1 gaduud, 5 jaalle, 3 buluug, meeqa buug ayaad hadda haysataa? tani waxaa ka dhigan tahay inaad xirfado xagga xisaabta oo idagsan karto, axlinta dhibaatooyinka oo aad sharax ka bixin karto sida aad jawaabta ku ogaatay. fasalka labaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad si sax ah u cabirto adigoo adeegsanayo qalabyo kala duwan. tan macnaheedu waa inaad isticmaashay qalab sida maastarad ama cabiro kale si aad u muujiso shay dhererkiisa. tusaale ahaan waxaan isticmaali karaa farta midisada si aan u qaysiyo 1 inji. waan sidoo kale isticmaali karaa ruler sidan uu ebero gacantayda. fasalka labaad waxaa lagaa codsan doonaa inaad samayso oo aad turjumto xogta. tan macnaheedu waa haddii aan ku tuso chart ama graph waa ii sheegi kartaa macnaheeda. tusaale ahaan fiiri jantusakan tusaya inta buskad amaroodiga cunay.